السلام عليكم walaal waxaan rabaa maanta inaan kaala hadlo hal shay ee aad ku liibaani karto ee adduunyo aakhiraba aad ku liibaanaysid adduunyo aakhirana aad ku noqonaysid mid liibaana shaygaas waa maxay shaygaas waa salaada walaal salaada ma dukatay walaal salaada masaajidka ma ku ilaalisaa walaal ilaahay baan kugu dhaariyay salaada ma ilaalisaa walaal ma is xisaabisay gadaal ma iskugu laabatay salaadaadii ma dukataa salaadaadu ma qurxoon tahay salaadii nabiga tuka jira ma tahay qofka walaalka ee guriga jooga salaada su'aad ma dhahdaa goobta ganacsiga ma soo xirtaa walaal Allah kugu dhaariyay salaada ilaali xilligan waxa lagu jiraa xilli aakhiru zamaan waa xilli fitan ay badan yihiin waa xilli qofkii salaada hela oo liibaanayo waa xilli uu yar yahay qof dukanaya iska daa qof masaajidka aadaya qof guriga ku dukanaya xitaa waa xilli uu yar yahay maxaa yeelay walaal waa aragta xilliga salaadaha ganacsiyadeena way furan yihiin dukaamadeenna way furan yihiin dadka guryaha iska joogaan baabuurta la iska wataa masaajidkiina hal saf laba saf baa kusoo dukanaysa Allahu akbar adduunyada inta joogtay Allah ma arkaysid balse Allah waa hor istaagi kartaa salaada marka taagan tahay Allah ayaa la kulmaysa Allah ayaa hor istaagaysa miyaysa jaaniseen walaal waxaan kugu dardaarmayaa salaada waxaana ka doonayaa inaad fariinteeda u gudbiso qof walba ee aad taqaano ama qof walba aad u gudbi karto maxaa yeelay aniga waan ku soo gudbiyo qof walba aad u soo gudbisidna ajir baa ka helaysaa insha Allah walaal wallahi qof walba aad u gudbiso ee noloshiisa wax iska bedelaan ee salaadiisa ku dadaala adigana salaadii uu dukado kala leedahay marka sidaa darteed waxaan isku daarmeynaa mar walba inaan wanaag isku dardaarno iyo khayrka isku sheegno waa walaalkiin Umar Sheekh Maxamuud Dublaawe oo idin la mar walba wanaag iyo khayrka aan isku sheegno walaalayaal